lixdan iyo labadaas ruux laga helay cudurka 18 waa dhadig 44 waa lab dhimashada waxaa soo saa'iday 2 ruux ilaahay u naxariisto waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday horay positive u ahaa 2 ruux tirada guud ee wadanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tagaysaa 390 dhimashada guud ahaan waxay isu tagaysaa 18 ruux waxaa ka bogsooday guud ahaan tira 10 ruux sida u jeedaan nambarada maalin walba maalinta ka dambaysa waa soo siyaadayaan dhimashada naftirkeeda waa soo siyaadaysaa walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuuno qabay oo da'doodana ay 50 ka sareyso haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib ilaaha qadaray ee Allah u naxariisto sabar iyo iimaan intii dhimatay Allah naga siiyo laakiin waxaana wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa oo ah waxyaalihii hore aan uga wada hadalno ay ahayd in wacyigelinta la badiyo in la isdhowro in qofka hadii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar uu wacdo nambarka 449 si loogu wacyigeliyo hadii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu diro hadii alla idmo marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedo dhan ay ka wacyigelisa inay ka tashato in ma aragta banaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds oo qofka dhaqo ilbiriqsi in guud ahaan nadaafadda lagu dadaalo iyo in mar walba ma aragta qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka calaamadihiisa mar walba lagu celiyo siyaabaha looga hortagi karo in ma aragtay ay muhiim tahay in la isu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah u baahan mar walba in ma aragtay laga fakaro sidii loo yareyn lahaa Soomaaliya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga haayo bisha Ramadaan fadligeedna aan ku wada dadaalno inaan duceysano oo aan iska wacyigelino mar walba oo la yareeyo isu tagga iyo meelaha ciriiriga ah guriga la joogo laguna dadaalo nadaafadda hadii alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم والله أكرم شعبك الصومالي إلهي عن كعب صنو بالرمضان برواقب بدن إلهي نسيو قبوءة ربا نوب اللوضي هذا بشان هو شهر العبادة عبادة دام بدنو إلهي دبكو أنك قادها يا ساسا رتشيني وحربانونا كهدلو social distancing إلا كلا فوقادو ورا ليال إنه كلا فوقادو بدبادة إنه كوجرته هذا كفكر إنه بتقبك ومدنا جودهان حتى مدة نفط كليئة مدة قويسك مدة ولا مدة درسك هذا كفكر إنه كلا فوقان شو حلب إنه يهاي هلا شقيستان ليري لكن هذانا وبندوقي وحلقة دقي هبينا laga dhiga maalintii waa laga daayay si dadku ay u shaqeystaan laakiin sida muuqata hadalkaasi dhig furan inay qaadato ma ku dhicin maantay laba video ah la isla dhaxmarahay mid waxay ahayd qabuuraha qofkii dhintay 100 qof isku raacada isku tagtay mid kalena waxay ahayd masaajidka markii lagu tukaday masaajidka qof walba seexday oo ku nastay markaas dhowr 100 qof مساعدك الوضع دح شفتها هذا أنت ما هين كل فقان شيء عن شيء قلني ما هنتاس وحفي عن سيدة دبا وح فائدة قوة إنا قادتي وآذن هالمامن هدي قاديت كي ما نكسر الشرع لما صار كر مساجد جدي إن الحرو ولا جمر ميره يا سببته عبادة بالعبادة نسوقش إن العبادة استواتها لكن إلا سيحضه ما اللي سكوقين وحي هاد صلاة اللي تكذب صلاة مركل اللي تكذب إلا كلا بحر أي هذا نقول بدنت إليه هاي
u aado saasaa la suugaa waqtiga weliba masaajidka lagu jiro la yareeyo si waajibka uu nooga gudbo annagana oo nooga dhaco laakiin in la dhex seexdo taas maahay qabuuraha sidoo kale annaga waxaan samaynaa call center ambulance servicena uu geesaha ka yaallo oo ambulance u yaallo qofkii soo waca 449 oo dad ka dhintay ambulance aadaya shaqaalo loo tababaray aadaya ayagaa wax soo qaban kara janaasadana hadda janaasada qof walba waa u tukan kartaa khasab ma inaa kor taagan taas aanu culimada mudaynaya in la yiraahdo jamaaca janaasaha la isla raadinaya maanta xaaladan jirta oo taqaarabooda ay dhacdo aniga waa caqligayga ka hadlaya laakiin cilmigaas waxaan u deenayaa culimada marka walaalayaal maanta waxa weeye baabuurkii waa dhaqaaqay baabuurkii aan bareega lahayn waa dhaqaaqay waad arkaysaan tirada maanta wasiiradda noo sheegtay inta uu kordhay inta uu soo saa'iday inta ka bogsatay inta u dhimatay hadda waa arkaynaa qof nagama go'o aan dhihi lahayn annagoo dhammaantiin gacanta isqabsanayna oo midnimo muujinayna cadowgaana soo weeraray aan u midoobno haddaanan cadowga u midoobin maxaa dhacaya cadow waa naga reynaya taasna maahan sidax saxda ahayd marka mar kale aan ducaynayaa waxa ilaahay naga aqbalo soonka laakiin haddana aan dadaalno aan kala fogaanno oo aan wacyigelinta qaadanno oo aan dhammaanteen isku duubnaanno si cudurkan aan iskaga saarno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo xogtii ugu dambeysay coronavirus Soomaaliya ilaa iyo saaka waxaa la baaray 24 saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada 62 ruux 62daas ruux laga helay cudurka 18 waa dhadig 44na waa lab dhimashada waxaa soo saa'iday 2 ruux ilaahay u naxariisto waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday horay positive u ahaa 2 ruux tirada guud ee wadanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tagaysaa 390 dhimashada guud ahaan waxay isu tagaysaa 18 ruux waxaa ka bogsooday guud ahaan tira 10 ruux sida u jeedaan nambarada maalin walba maalinta ka dambaysa waa soo siyaadayaan dhimashada naftirkeeda waa soo siyaadaysaa walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuun qabay oo da'doodana ay 50 ka sareyso haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib ilaaha qadaray ee Allah u naxariisto sabr iyo iimaan intii dhimatay Allah naga siiyo laakiin waxaana wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa oo waxyaalihii horay aan ugu wada hadalno ay ahayd in wacyigelinta la badiyo in la isdhowro in qofka haddii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar uu wacdo nambarka 449 si loogu wacyigeliyo haddii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu diro haddii alla idin marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedoo dhan ay ka wacyigelisa inay ka tashato in maaragtay banaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds uu qofka dhaqo ilbiriqsi
in guud ahaan nadaafadda lagu dadaalo iyo in mar walba maaragtay qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka